madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey shir madaxeedkii soddonaad ee midowda afrika kaasi oo maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku bilaabay mahadcelin uu u jeediyey madaxweynayaasha kasoo qayb galay shirka, isagoo sidoo kale bogaadiyey hiigsiga afrika ee sanadka 2063 kaasi oo isku xidhi doona afrika una yeeli doona awood dhaqaale iyo mid horumar. madaxweynaha ayaa caddeeyey in sanadka 2018 uu yahay sanadii ay afrika ku guuleysan lahayd la dagaalanka musuqmaasuqa. waxa uu tusaale u soo qaatay sida afrika ay hodanka u tahay iyo sida dadkeedu ay saboolka u yihiin. madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in musuqmaasuqu sabab u yahay inaan horumar fiican laga samayn afrika. madaxweyne farmaajo ayaa u sheegay madaxda afrikaanka ee shirka ka qaybgalaya in dowladda soomaaliya ay muhiimada koowaad siinayso la dagaalanka musuqmaasuqa. wuxuu xusay madaxweynuhu inay sameeyeen sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa, adkeynta nidaamka maamulka maaliyadda dowladda iyo qaabka loo raacayo oo ay ka mid tahay shaqaalaysiinta dadweynaha, taasi oo u baahan isla xisaabtan iyo in loogu adeego danaha shacabka. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay muhiimad gooniya siinayso soo celinta ammaanka, horumarinta dhaqaalaha, adeega bulshada iyo maamul wanaagga. sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa khudbad kale ka jeediyey shirka dib u qaabeynta ajendaha midowda afrika. wuxuu caddeeyey madaxweynuhu in soomaaliya ay taageersan tahay dib u qaabeyn lagu sameeyo ajendayaasha midowda afrika, wuxuuna xusay inay taasi caddaynayso ka dhab ahaanshaha ururka ee xaqiijinta hiigsiga 2063, taasi oo keenaysa isdhexgalka iyo horumarka bulshada afrika. dhinaca kale, madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu kulan gaara la yeeshay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa bogaadiyey horumarka la taaban karo ee dowladdu ay ka samaysay dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dib u heshiisiinta. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhinaca kale sheegay in dowladda ay ka go-an tahay sii xoojinta dib u heshiisiinta iyo xasilinta dalka, isagoo intaasi ku daray in muhiim ay tahay in qaramada midoobay ay dardar geliso taakulada ay siiso Soomaaliya.